قرآنك إلهي جل وعلا تشريف ونبي الشرفايو يا أيها النبي كي أندورتيو يا أيها الرسول كي أنقو أندرتيو يا أيها المدثر كان ازداد يزدودوبيو يا سيد القرآن الحكيم وتشريف هداد مقاش قرآنك والنبي عليه الصلاة والسلام إلهي تبارك وتعالى كن يد يسقو بحيي وأقول يديو وأشرفين إلهي نبي محمد وشرف يويان نبي قاسا إلهي أمدي سنقدقي نبي الدارين كيله نبي أمني ما كفكريا نبي عالم كأودم قنيا من مالك إلا صوص ساري إلى ساعة قيامته أي إيمان يسو واحد بشر إيمان ينبي يقولها يا جبريل أمتي أمتي يا جبريل أمتي والله نبينا صلى الله عليه وسلم ميل يربو نقطه سميلير حديث في صحيحين ميلير السنن صحابي بالنبي قوي مني قال يا رسول الله مركم إلهي أنبر يا صلي قاقا دعاء إذا مركم نفروا غيبيو قيب بان كدقاء كورن بوكي مركب النبي بوكي وخير هداد كزيادة ساسي كسي خير بدن بل حديث كان دغيستا marka saxaabiga yiri marka loo qaybiyo salligaaga qayb ba ka dhigay labana de anna bashar baan muraadkiga ilaahay u sheegan marka uu nabigu waa khayr fa yazita fa huwa khayrun laka hadad biirisana kaga si khayr badan marka suuri saddex markaan u qaybiyo laba qaybood salligaagan ka dhigi midna ana baahida ilaahay u sheegan waa khayr buu nabigu ku yiri haddaad ka ziyaadisaase kaaga khayr badan haddana wuxuu yiri sidaas markaas uu saxaabigii yaabo wuxuu yiri hadduu arinku sidaaba yahayba ducadeydii dhanayd ba intuu halkaa iska dhigo ayaa salligaaga ku bilaabay salligaagana ku dhamayn markaa buu nabigu ku yiri idan tukfa hammuka wa yughfaru laka dhanbuka bukay haddii markaad gacmaha ilaahay hor taagto ducadii dhanayd aad salligayga ku bilaabdo salligaygana aad ku gabagabaysidba waxa lii wixii adduunyada hammi aad lahayd oo dhan waa lagu qabtay waad heshay dambigaagina waa la dhaafay rasuulku ka yiri sirta noloshu ma tahay sama halkaas laakiin indhihii lagu arkay Allah ka siiyo indhihii khayrka lagu arkayay ee quraanka lagu arkayay ee salliga nabiga lagu arkayay qiimihiisa ee ducooyinka nabigu nasiye lagu arkayay indhahaas waa indhaha qalbiga Allah inoo furo waxa uu nabigu ninka ugu jawaabay bal dhageyso haddii ducadaadii dhanayd salligayga ku soo koobtid adduunka dusheeda wixii hammi humuumaad lahay hammiga bini aadamka adduunka waa laba weeyaan mashkalad haysata uu xal u raadinayo iyo xaajo uu leeyahay oo cid u qumisa uu doonayo labadaaba wada shay rasuulku ka yiri aakhirana ma taqaana qofka muslimka waxa haysta wuxuu ka aakhira markii la hor joojiyay ilaahay waxa ka cabsi qaba waa maxay war muxuu ka cabsi qaba waa dambigina waa laga dhaafay rasuulku yiri waa salligii nabigeena kaleey salaatu wasalaam ayuu nabigu noogu sheegay sirta adduunyada nolosha inay halka ku jirto ee sirta aakhirada adduunyadana wixii hammi aad lahayd oo dhan hammiguna waa labada ay dhageysto waa nigu celinay waa mashkalad ku haysata adiga oo xal aad u raadinaysid iyo xaaje aad leedahay oo cid ku qumisa aad doonaysid ilaahay baa ku daboolay mashaakilkiina ilaahay baa ka faydi xaajadaadina ilaahay baa ku qumin aakhirada hammiga ugu weyn ee qofka muslimka hor yaalla uu qof walba ka baqayna waa maxay waa dambigiina waa laga dhaafay rasuulku yiri waa salliga nabiga فنكسر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سلقي سام بدنينا سلقي سوى مناجات علماء الإسلام بقار وحيد هذا ما ذكرك إله إلا حصى يا فضل بدن مثل سلق النبي عليه الصلاة والسلام قاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى وحقوق شيء سلق على سكر عين فضل بدنيه ما الدليل على ذلك بالغيري وحيد هذا العلماء فقهاء هاي إلهي النورانية دوسيي سبحان الله مركات تراديد بالنبي قولي قيد با جنة لغاقا بيرا الحمد لله مركات تراديد قيد با جنة لغاقا بيرا لا إله إلا الله مركات تراديد قيد با جنة لغاقا بيرا الله أكبر مركات تراديد قيد با جنة لغاقا بيرا ولكن سلق النبي قوصه النقو صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات نيكا أنيكا مر يقول صلي يبو النبي قولي
إلهي نحريس درجات ويدية إسقنا طبعا جرب إلهي ونحريستا جد جنة الله جاب بيري طبعا جرب إلهي كون نحريس تجافا لذلك نكثر صلوات النبي عليه الصلاة والسلام وإن صلى النبي جنبنا وإن المناجات ساعدها ضمبين إلهي لم مناجون إنه وإن النبي جنا كصلنا عليه الصلاة والسلام وإن نوحي النبي جنا كوينا إنك وين نقوينا ده قرآنك إلهي جل وعلا تشريف ونبي جيس الشرف يا أيها النبي كان كي أندرتيو يا أيها الرسول كي أنجو أندرتيو يا أيها المدثر كان ازداد يزدودوب يو يا سيد القرآن الحكيم وتشريف هداد مقاش قرآنك والنبي عليه الصلاة والسلام إلهي تبارك وتعالى كن يد يسقو بحيي وأقول يديو وشرفين إلهي نبي محمد وشرف يويان نبي قاسا إلهي أمدي سنقدقي نبي الدارين كيله نبي أمني ما كفكريا نبي عالم كأودم قنايا من مالك إلا صوص ساري إلى ساعة قيامة أي إيمان يسوع واحد بشر إيمان ينادي لها يا جبريل أمتي أمتي يا جبريل أمتي والله النبي صلى الله عليه وسلم ميل يرجو إنك تسمى ميل ير حديث في الصحيحين ميل ير في السنن صحابي بالنبي قوي منه قال يا رسول الله مركب إلهي أنبر يا صلي قاقا دعاء إذا مركب نفر قيبيو قيب بان كدغاي كورن بوكي مركب النبي كوي وا خير حداد كزياده اساسه كسي خير بدن بل حديث كا دغيستا مركب صحابي غير مركب لو قيبيو صليغا قيب با كدغي بودي لبنا دي ان بشر بان مراد كي الله هو شيغان مركب النبي وا خير فإن زدت فهو خير لك حداد بيرسنا كاكسي خير بدن markaas uu yiri saddex markaan u qaybiyo laba qaybood salligaagan ka dhigi midna ana baahida ilaahu sheegan waa khayr buu nabigu ku yiri hadaad ka ziyaadisaase kaaga khayr badan hadana wuxuu yiri sidaas markaas uu saxaabigii yaabo wuxuu yiri haduu arigu sidaaba yahayba ducadeedii dhanayd baa intuu halka iska dhigo ayaa salligaaga ku bilaabay salligaaga ku dhameyn markaa buu nabigu ku yiri idan tukfa hammuka wa yughfaru laka dhanbuka bukay hadii markaad gacmaha ilaahay hor taagto ducadii dhanayd aad salligayga ku bilaabdo salligaygana aad ku gabagabaysidba waxa li wixii adduunyada hammi aad lahayd oo dhan waa lagu qabtay waad heshay dambigaagina wala dhaafay rasuulku kayf sirta nolosha ma tahay sama halkaas laakiin indhiga lagu arkay Allah nasiyo indhihi khayrka lagu arkayay ee quraanka lagu arkayay ee salliga nabiga lagu arkayay qiimihiisa ee ducooyinka nabigu nasiyo lagu arkayay indhahaas waa indhaha qalbiga Allah inoo furo waxa uu nabigu ninka ugu jawaabay bal dhageyso hadii ducadaadii dhanayd salligayga ku soo koobtid adduunka dusheeda wixii hammi humum Allah hammiga bini aadamka adduunka waa laba weeyaan mashkalad haysata oo xal u raadinayo iyo xaajo uu leeyahay oo cid u qumisa uu doonayo labadaaba wada shay rasuulku ka yiri aakhirana ma taqaana qofka muslimka waxa haysta wuxuu ka aakhira markii la hor joojiyo ilaahay waxa ka cabsi qaba waa maxay war muxuu ka cabsi qaba waa dambigina waa laga dhaafay rasuulku yiri waa salligii nabigeena kaleey salaatu wasalaam ayuu nabigu noogu sheegay sirta adduunyada nolosha inay halka ku jirto ee sirta aakhirada adduunyadana wixii hammi aad lahayd oo dhan hammiguna waa labada ay dhageysto waa nigu celinay waa mashkalad ku haysata adiga oo xal aad u raadinaysid iyo xaaje aad leedahay oo cid ku qumisa aad doonaysid ilaahay baa ku daboolay mashaakilkiina ilaahay baa ka faydi xaajadaadina ilaahay baa ku qumin aakhirada hammiga ugu weyn ee qofka muslimka hor yaalla oo qof walba ka baqayna waa maxay waa dambigiina waa laga dhaafay rasuulku yiri waa salliga nabiga فنكسر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سلقي سام بدنينا سلقي سوى مناجات علماء الإسلام بقار وحيد هذا ما ذكرك إله إلا حصى يا فضل بدن مثل سلق النبي عليه الصلاة والسلام قال عياض رحمه الله في كتاب الشفاء
بتعريف حقوق المصطفى وحكو شيغي صلي قال اسكو راعينو فضل بدن يحي ما الدليل على ذلك بالغيري وحيل هذا العلماء فقهاء هاي إلهي النورانية دوسيي سبحان الله مركات تراديد بالنبي قولي قيد با جنة لغاقب بيرا الحمد لله مركات تراديد قيد با جنة لغاقب بيرا لا إله إلا الله مركات تراديد قيد با جنة لغاقب بيرا الله أكبر مركات تراديد قيد با جنة لغاقب بيرا ولكن سلق النبي قوصه النقو من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات نيكا أنيكا مر يقول صلي يبو النبي قولي إلهي نحاريس درجات إي ويدية إساقنا تمجر بإلهي ونحاريستا قيد جنة لغاقب بيري هي تمجر إلهي كون نحاريس انتقافا لبغا لذلك نكثر صلوات النبي عليه الصلاة والسلام وإن صلق النبي نبضنا وإن المناجات ساعدها ضمبين إلهي لم مناجون إنه وإن النبي كصلنا عليه الصلاة والسلام وإن نوحي النبي